فرينت ندرينا وحوية حالة مركي هالكنو كلام رئيسه ضدك وحلقوا آمني إني أمانة ذو ذكتان ضدك ونحرا حق أمنك هي إلالين إني حق ذكتان وضدك أنا وكلا يا حني وحي لقوه الشيء ألا يسكوي ذاري لأن النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه ضدك مسلمين في واحد قصوا عليا شروط الكتاب ترى ده الشرع خلاف سنين زاد رادد إن أمنك الإلاليه يضر عيد قاره لديفيني dadka gacanta wax loo galiyaa oo xaq soorayana inay iyaguna haday gudi tahay haday maxkamad tahayda inay iyaguna sida xaqiiqada ah waafaqaan oo waxba aanay qalloocinin inta waxa sii weheliya dadka marka iyaguna tartamayeen waxa ay ku heshiyeen inay ku socdaan oo xeerkii iyo nidaamkii ay dhigteen iyo cidii wax loo dhiibtay qaraaraadkay soo saaraan inay iyaguna aqbalaan waajibka ku ah waata iyo nabi wuxuu leeyahay almuslimuuna ala shuruudi muslimiintu waxay ka duulayaan oo ay ku soconayaan shuruudooda waxaynu intaasi raacin lahay haddii ay dhacdabo wax qalloocdaan marnaba xalaal u noqon mayso dadka wax tabanaya inay dhiigga muslimka iyo dagaal iyo fitilo ridaan iyagoo waxbaana laga qaaday ku xalaashanaya taasina waa mid aynu sii fatwoonayno oo aynu sii sheegayno waa dhiigga muslimka laguma xalaashado xuduud baa la gaadhayaa siyaasad baa la fulinayaa inta lagu xalaashanayo wuu cayimayba nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka walaalaha muslimiinta ah iyagaa garab iyo gaasaan isu ah saamaxaadda aynu sheegayna inay ku soconayaan marka waxbaa iga qalloocday waxbaa iga naaftay marnaba fitna laguma ridi karo qofka taa ka hooseedana ilaahay hortiisa iyo ummadda horteedaba dee taariikh xun ku galayaa waxaanaynu leenahay markaynu ka duulaynaa waa taa aynu soo sheegnay akhlaaqda wanaagsani waxa weeye cun iyo tanaasulka qofku taariikhda ayuu ku galayaa tanaasulka laakiin fitnada iyo fawdada iyo fasaadka kuma galay aad waxaynu isaga ilaalin doonaa cadi haw ku cunay ama ku ciiday arrinta hoosta ka calaamadiya ama waa inaan wixii helaa ama waa inay kala daadataa taasi waynu iska ilaalinaynaa dhaqanka shaydaanka iyo shisheeyaha weeye dhaqanka dadka muslimiinta ma aha waxaana runtii dareemayaa dadka in aad loo cabeeyayo qolo waliba ay iska ilooween shaygii la odhan jiray insha allaahudii layna amray dee lamaba odhanayninba innagaa helayna hebel baa soo baxaya markuu soo baxa saasay noqonaysaa dadkii waxaa lagu akhriyeen insha allaahuna la odhan haddaynu hellana la odhanin dee waa laydinka helay way ku adkaanaysaaye balaayo ninkii kiciyey baa dejiyee sidinka dadkaa ku dallacdeen sidaa uga dejinaysaan idinkaa yaqaan marka farriimahaasaynu diraynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa wixii fitnaana inuu naga joojiyo wanaaggana uu inagu ilhaamiyo iyo sawaabka iyo deganaanshaha innaga iyo dadka muslimiinta ah في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص